السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي هابوني دلهانتين با daawadayaal kusoo dhawaada Halhays Media. Qodobada warka ugu doorka roona waxaa kamid ah maxaa ka soo bixi doona warbixintii Mueller ee muddada dheer la sugayay. Aqalka sare ee Mareykanka ayaa ka dhursugaya warbixinta Robert Mueller ee ku aadan ololihii Trump iyo Ruushka iyadoo la filayo inuu maanta warbixin ka soo saaro. Robert Mueller ayaa loo xil saaray baaritaanka la xiriira ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Trump iyo dalka Ruushka. Warbixintan oo muddo 2 sano ah la sugayay ayaa jimcihii loo gudbiyay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr. Sarkaal ka tirsan waaxda cadaaladda ayaa sheegay in warbixintu aysan ku jirin eedeymo cusub. muddadii uu baaritaanku socday Mr. Mueller iyo kooxdiisa ayaa dacwada ku soo oogay 34 qof oo ay ku jiraan 6 ka tirsan shaqaalaha Trump iyo shakhsiyaad Ruushka u dhashay iyo 3 shirkadood oo laga leeyahay dalka Ruushka. eedeymahaas ayaan si toos ah u khusaynin baa lagu yiri ololihii madaxtinimada ee Trump iyo xukuumadda Moscow oo uu madaxweyne Trump mar walba beenin jiray. Mr. Mueller ayaa la sheegay inuu sidoo kale baaritaan ku sameeyay Trump inuu meel uga dhacay sharciga oo hor istaagay baaritaanka ay FBI ku waday xiriirka u dhaxeeya ololihiisa iyo Ruushka. wali ma cadda inta ay leegtahay xogta ku jirta warbixinta ee bulshada lala wadaagi doono. Mr. Mueller ayaa go'aansan doona in sidoo kale xogta lala wadaago aqalka sare. Mr. Barr oo uu magacaabay Trump ayaa madaxda aqalka sare u sheegay jimcihii inuu yahay qof aan dhinac ahayn. Mr. Barr ayaa shalay 9 saacadood ku qaatay waaxda cadaaladda halka madaxweynaha ayaa dhanka kale aaday hoteelkiisa oo ku yaala Florida ee loo yaqaano Mar-a-Lago Hotel halkaas oo ku qadeeyay waqtigiisana ku qaatay.